بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. ugu horeyn waa idin mahadnaqaya idinka iyo bahdan soo diyaarisay dariskanba. waa marka labaad cinwaankan su-aal ahaanta loo dhigay ee ah waa kuma aqoon-yahanku. waa su-aal aan fududayn in laga jawaabo, waayo waxay isweydiinta le waxay tahay aqoontu waa maxay. kadib baynu isweydiinaynaa yaa aqoon-yahana. kadib baynu isweydiin doonaa aqoon-yahanka aynu inagu u baahanay waa kuma, kaalintase uu bulshadeena ku leeyahay maxay tahay. su-aasha koowaad ee ah aqoon العلم maxaa cilmiya waa su-aal aada u qadiima, waa su-aal da-weyn oo aadanuhu muddo aada u badan doodeeda uu ku jiray. sidaa awgeed baa furuucda falsafadda aynu naqaano lacallaha inay tahayba farca ugu culus oo ah farca epistemology. epistemology-gu waa almacrifa, waa alcilm. waxaanu ka warramayaa maxaa aqoon ah, sidee aqoon lagu gaadhaa, bale su-aalo kaba adag oo ah wax ma la aqoonsan karaa mise waynu riyoonaynaa. aadanuhu xaqiiqada ma gaadhi karaa mise wuu ismoodsiiyaa. waa su-aal aada u da-weyn runtii. sida awgeed ayaa falaasafadii hore iyo kutubulfalsafa dhammaantood way ka hadlaan. su-aalna haddii lagu yidhaahdo waa su-aal falsafiya, jawaab falsafiyi ma jirtaba. waayo lacalla waxaa laga yaabaa inta madaaris fikriya ama school of thoughts dunida soo martay mid waliba jawaab bay ka leedahay. bale lacalla inaad is odhan karto mararka qaarkood mala filosof kastaaba ra'yu ka leeyihi. waayo falaasafadu waxay wadaagaan mushkiladda, laakiin xalka ma wadaagaan, jawaabta ma wadaagaan, ee waxay wadaagaan mushkiladda iyo soo bandhigeeda. waana su-aal ilaa hadda dadka wax qoraa weli ay ku foogan yihiin siday uga jawaabi lahaayeen. hataa waxaa laga yaabaa furuucda cilmiga ee baxtigaa rag wax ka qoray oo weli su-aashan ay ku taagantahay inaad arki doonto. maalan Ernest Mayr, This is Biology, The Science of Living World, buuggiisa la yidhaahdo fasal baa ku jira ama chapter uu kaga warramayo su-aashatan. waxaa la mid ah Ronald Omnes, Quantum Philosophy, waa quantum buu ka hadlaya, quantum mechanics. chapter baa ku jira buuggiisa uu kaga warramayo mal cilm ama maxaa aqoona. markaynu eegno David Zarnik oo ah ustaad culuum insaaniya, social science, buuggiisan akhlaaqiyaat alcilmi la yidhaahdo, chapter baa ku jira uu kaga warramayo mal cilm. kuwan aan soo qaatay ma aha dadkii hore, waa qarniga 21aad kuwa wax qoray. hadda qarnigii 20aadna maaha, waa qarniga 21aad ayaa weli akademigu isku dayaya su-aasha inuu dib u soo celiyo. walidalik aadanuhu sidiisaba haddii la sifeeyo mala waxaa la odhan karaa waa albaaxith can alxaqiiqa, waa raadiyaha ama cidda raadacaysa xaqiiqada inuu gaadho. sawaa ha noqoto ontology ama alxaqiiqa alwujuudiya, jiritaanka metaphysics, maa waraa'a aطabiica,
beyond the nature waxaanaynu aragna maxaa ka dambeeya oo markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo jiritaankiisa iyo wixii ku saabsan ay kaga warramaan ama physics-ka laftiisaba haato metaha intaynu ka tagno oo ah abiica nature-ka inaynu raadacayno oo culumtan scienceska aad taqaaniin oo dhamme ay ku jirto raadcada nature-ka iyo xaqaa'iqdiisa inay wax ku ogaato ama ahaato faraca kale falsafiga ee ku saabsan ethicska alakhlaaqiyaat alqiyam maxaa khayra maxaa shara maxaa san maxaa xun waa farac ka mid ah furuuci alfalsafa amase ha ahaato faracan ku saabsan aestheticska ama aljamaaliyaat beautyga maxaa quruxa kuwa baadiya waa qoladan u taqaaniin fanka iyo muusiqada iyo aartka iyo naxtiga iyo suugaamaha iyo waxaan oo dhammi suurad bay rabaan inay kuu sawiraan qurux la yidhaahdo waxa ay falsafadi baadhayso oo dhan ee xaqaa'iqda ay ku tilmaamayso ayi xaqiiqa raadinteed ayaa epistemology-gu ka warramaa ama cilmigu ka warramaa ama macrifadu ka warrantaa aqoontu ka warrantaa walacalla haddaynu islaamka eegno aragtiyaha tirada badan lee nadariyat almacrifa waxaa laga yaabaa inuu ugu dhadhow yahay nadariyada macrifada ee maxay almutaabaqa la yidhaahdo oo ah waa qowlka ama tasawurka yacni suuraynta ama weedha waafaqsan waaqaca xaqiiqada waafaqsan ayaa cilmiya haddaba su-aasha aynaynu ka jawaabna su-aal fudud maaha aadanuhuna horu ugu daalay haddii marka aad tidhaahdo aqoontuba way adagtay in laga jawaabo insaanku waa xaqiiqa raadis su-aasha isweydiinta le ka dhadhowi mala waxa weeyaan sidee aqoon loo heli karaa ama maxaa maraajic masaadir halkee aqoontu ay jirtaa laga raadceeyaa ama kayfa natacallam inaynu markaa raadcayno aqoontu inay masderna leedahay wasiilo na leedahay manhajna leedahay saddexdaa eray u fiirso mid waa masder waa marjac waa meel loogu noqdo ka muslimiin ahaan waxaa la rumaysanyay masder ilcilmi inuu yahay alkown walwaxyi universe-kan aynu ku nool lahay dhammaantii iyo waxyiga oo labadaas waa maxay midi waa khalq ullah aw mafcuulaati ilaahay wixii uu abuuray uu sameeyey barashadiisa midna waxa weeyaan waxyigii xagga rabbi ka yimi ee aqoon ee rabbi soo diray labadaas shay waa marjaca fi shariica la rumaysan yahay inuu yahay maxay aqoonta meesha laga raadceeyo waxna waa wasaa'il aalaadka loo adeegsado aqoonta baadidoonkeeda oo ah alxis waalcaql alxis waalcaql ah dhagaha iyo indhaha iyo waxaan xiska xawaasta loo yaqaano iyo maanka ama garaadka ama caqliga oo ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a ilaahay caloosha hooyooyinkiin buu idinka soo saaray idinku aan waxba garanaynin wajacala lakum الsamca walabsaara walafidata lacallakum tashkuruun wuxuu idin yeelay adawaadka waxbarasho wax lagu barto sidaa awgeed wax kasta oo daliil looga helo qadiya kowniya ama daliil looga helo waxyiga samada ka yimi waa macrifa ama waa cilmaynu odhan karna haddii labadaa daliil looga waayana waa khuraafa si awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa
قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله كورم با إله إليه سبحانه وتعالى شركاءكم الذين تدعون من دون الله عندنا عابد سان إلهي السكدي أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إلهي وحلي الدليل كونك كان عركن يدلكن يوحن شريني وحكولين دليل كصابسن كان أما ما هي مد وحيية وحق الرب كيمي كان لبدا هدا مدنا ويدان با إلهي ليهي بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا وحكى لا يسقوا الرميسان وكدين يبين با إلهي تلمامي وحنا بماها سيدا وقيت waxaan leenahay marjaca ama meesha aqoon loogu noqdo waa alwaxyu iyo alkown ama kitaab ullahi almaqruu iyo kitaab ullahi almanduur aqoonta aadamuhu uu baadho oo dhami uun waa abuurkan wax ka midoo la ogaaday siduu u shaqeeyo haddaynu wax ku kordhinana waxaynu isku daynaa waxaasi siday u shaqaynayeen inaynu qallidno inaynu ku dayanno all technology waa taqliidun liabiica bay yidhaahdaan wax kasta oo scientificoo la ogaadaa waa qaacida ama waa loo ka mida qawaaniinta kownkani uu ku socdo ayaad wax ka soo ogaatay dabeetana isagii baad isku dayaysaa inaad dib u isticmaasho si aad adna wax u samaysan kartid haddaba wasiilada la isugu gudbiyaase muhim maaha wasaa'ilka qaarkood dadku uu macrifo ku raadiyey shareecadu way diiday faalka iyo sixirka iyo riyooyinka waxa iska aan adilo dhaba ahayn ma aha adilo kownka cilmiga yaalla ama kitaabka cilmiga ku jira wax ka keena haddaba waxaynu leenahay aqoontu hadday kaa tahay aqoon-yahanku waa kuma erayganan af soomaaliga ee aqoon-yahana kii aqoonta lahaa malaa luqaadka wax ku dhigataan erayo badan oo macnayowgooda wax u dhexdhexeeyaan baa jira laakiin inagu dhammaanteed aynu ku tarjunno aqoon-yahan maalan qofkani waa academic waa scholar waa learned person waa qof knowledgeable ah waa erayada tirada badan waa intellectual erayada tirada badan lee luqada ingiriisi la sheego intooda badan waxaa laga yaabaa inaynu inagu ku fasirno inuu yahay aqoon-yahan mararka qaarkood erayadii intii af soomaaliga la qoray la soo kordhiyay waxaa ka mid ahaa intellectual people-ka waxay dhaha waa indheer garad indheer ayuu garanayaa qofna indhow buu garanayaa midna maxay indheer buu garanayaa waa erayadii markii dambe terminology-ga la soo kordhiyay indheer garad iyo aqoon-yahan bini aadam aan aqoon-yahan hayni miyuu jiraa I don't believe haddaad sidaa u tidhaahdo erayga sidaa waasica isaga sheegto ma qof aan aqoon lahayn baa jira ha yaraata hase badnaato ninka reer miyiga ah ee geela haysta waa aqoon-yahan geeleed ilaa xad soo maaha wuxuu yaqaana geeliisa sida loo maalo sida loo arooriyo sida loo xaraysto sida loo daajiyo sida yacni wax badan oo idinku aydan suurayn karin oo cilmiyuu hayaa ilaa xad wuxuu bartay geela marka la lisayo hadhuubka xaggee lagala galaa mahaaniidka mise biskeedka mahaaniidka iyo biskeedka ma taqaanay hadhuubka ninka geela lisaya maka dhanka bidix kaga jira hadhuubka loo dhiibaa hasha bidixdeeda taagan mise ka midigteeda taagan baa loo dhiibaa mise mid walba waa loo dhiibi karaa maya galjiruhu mid qudhu u dhiibaa waanu riisan garaynayaa labada ninba hadhuubka ma wada qabtaan geela ma taqaanin meel la yidhaahdo gorofleged
هل كان يركوسن هشة أدين كذا قرف لقيت بالله هذا قرف كوا هروك اللي قد داويا هروك تورتا نفك جل يضل لسه أيوس كان دقاقة مركو دونا هدور دقاقة أنا قرف كوا كاغا نفنايا ده قرف لقيت كيس قرف لقيت بوح اللي بحيي ده قرف كوا لقده إذا مو حلو ديبا نينكا midigtiisu ay dambeedka lisayso ee hashu markay istiraahdo soo dhaqaaq haruubku kan uu saaran yahay kala wareegi kara hadduu adinkan ku hayo markay dhaqaaqdaba way ku dhufanaysaa laakiin hadduu adinka kale ku hayo distance baa u dhaxeeya uu dareemi karo hashu inay soo socoto oo gorofkiisa ka duwi karo idan waa cilmi waa aqoon uu bartay hasha haruubka xagga laga galaya idan waa aqoon-yahan laakiin waqtigan dambe waxaad moodaa aqoonta dadka badhinay ku soo koobeen intan schooling systemka lagu qaato scholarka kuwan la yiraahdo مثلا ninka waayeelka ee boqolka sano soo jiray ee waaya aragga ee tajribo wax badan ku soo helay miyaan la oran karin waa aqoon-yahan nololeed nolosha wax badan buu ka ogaaday haddaba haddii aynu nidhaahno wuxuu waa terminology literally ha u macnaynin يعني أريجا أفهمون هيسجا معنين إن هذا ترى هذا وينو يشا معناه محي مصطلحة terminology وبنادم كا أكاديمي جاية ما قوية هنك قلنا الشيء كتير سلا جراتي وقف كسته وقنتي سايكو صلايسان تهاي لبدا مصدر إنه شاقني إما وحي جا كتاب وسنة أما كون كاسي برشدي سايكو صلايسان تي ونمري طرق علم قال يقين سيهي مال الرمي سيهي ووسيلة أديك صدايا تهي إما الحس وإما العقل وسيلة أديك صداينا تهي إنه عقلك استعمالي أما سإنه استعمالي محي حواسته واستعمالي دبتنا عن طريق الملاحظة والتجربة يوحي لها المالة observation والله ساينس سمعت هذا هو ملاحظات observation اسمها السماية ظاهرة موقتة والله observe كرهية كذب hypothesis اسمها الله سماية كذب ولا تجريبية كذب scientific law أما واحد قانون نظريات بالله كينا كذبنا بيبر كأكاديمي قابل لغو قراه كذبنا falsification test باي مرتا أما ولا نقدية أما ويسوغانتا وحسوغان وعركتي علمية باي نقطة أما ولا نقدية هذا با أقويها كاين الربنا إنه وحين لأنه وينو ويران لبها الله هيستا وينو لا يكيد أقوامات قابكو دونها كسوهما كيد أقوامات وينو قفك نسيده كلاباتنا وحن لنا وينو حس نقدي لي critical وين أنا ويل وش باي وحاهينه وح نقدين كره وينو يهي هدي أقويهم هو هان لها ويل وح لوش باي هان لبوحيي دي CD ده DVD ده أقويهم والله سماه اللي جابوحيي وحكنا ما كمبيوتر كواحد لو قرأ أقويهم من والله أقويهم كان ربنا هاي بني آدم كهي وينو نقضى محي قف كيد قوماد له حس نقديانا له وح نقدين كره وحضوري كره وحنو سيته في صوماليا محين ورقنا وحفي كره له وفي ده صمت غاني وحن لعناه بالك له لقى في صوماليا مركز الله طوما محل سمين شري سلوك على صار بوشها iyo lub shay gamirihiisa rasmiga la rabay inta alla tumo cabaar la buhabuheeyo ayaa kadibna masafta lagu shubaa dabeetana waa la hufaa waa la haadiyaa aqoonyahanku marka waa inuu noqdo qof kayd cilmiyeed leh mar labaadna wax xufi kara
haan la buuxiyay aan ahayne qof wax hufi kara oo wax naqdin kara oo waxan waxasan iyo waxa hagaagsan kala garan kara waa inuu noqdaa walidalik aqoonyahanku kaydka cilmiyada aan ka rabnaa kow marka inagu dad muslimiin nahay kow waa inuu garanaya akbar xaqiiqa iyo waxa uu waajibay xaqiiqada dunidan ugu weyn ee ugu daliil badan waa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo jiritaankiisa fi shariica qofka taa garan waaya aqoonyahan qur-aanku uma rumaysna inuu yahay ilaahay wuxuu leeyahay afaman yaclamu anama unzila ilayka min rabbika alxaq kaman huwa acma inamaa yatadakaru ulu lalbaab ilaahay wuxuu leeyahay afaman yaclam kii garanaya wixii nebi maxamedow kugu soo degay calayhi salaatu wasalaam inuunu xaq yahay kaman huwa acma ka indhaala miyuu la mid yahay indhuhu waa wasaayishii ugu fiicnaaye maxay cilmiga lagu baranayay cilmi daaye wuxuu la'yahay wasiiladii lagu gaari lahaa buu qur-aanku saanu tilmaamaya kaman huwa acma inamaa yatadakkar ulu lalbaab idan cindana fi shariica oo fi lislaam waxay leenahay akbar xaqiiqa qofku hadduu garan waayo aqoonyahan noqon maayo waayo macluumaadka iyo macrifadu waxay u kala qiimo badan yihiin siday xaqiiqada ugu kala badan yihiin una kala anfac badan yihiin baynu odhan karnaa saasi daraaddeed aqoonyahanka aan rabno markaan soo koobo waxaynu leenahay waa qof aqoon cilmiyeed xambaarsan oo labadaa masdar ka xambaarsan ama taa kowniga ee naajaralka ah ilaahay sameeyey ama taa waxyiga uu soo dejiyey xambaarsan xis naqdiya ana leh critical wax naqdin kara wax walba aan sidiisa isaga qaadanaynin wax hubin kara wax xufi kara wax haadin kara ka saddexaad waxaynu leenahay fi lislaam waxaa kaloo aqoonyahanka loo rumaysay inuu yahay aqoontaasi qof isticmaali kara oo mujarad haddaad aqoonta intaad iska buuxiso meel fadhiisato oo aanad nolosha dowr ku lahayn qiimo ma leh waa ka ilaahay tilmaamaya kuwa diinta gartay oo aan haddana ku dhaqmin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa kamahali اlkalb in taxmil calayhi yalhad aw tatrukhu yalhad sidii ey buu la mid yahay baa la yidhi eyga waxaa isku mid ah haddaad erido iyo haddaad iska dayso eygu wuu haraariyoodaa labadaba socankaa maa haraaryada ma taqaaneen carabka markuu laalaadiyo ha yidhaaho yani xayawaanka kale ee caadada waxaa lagu yaqaanaa markay kulayl dareemaan ama la eriyo ama waxay lamid ay haraariyoodaan laakiin markay iska nabad qabaan ma haraariyoodaan eygu se isagu labada jeerba maxaa saa loogu matalay waxa weeyaan aqoontu de waa inay isbeddel nololeed keentaa aqoontu waa inay suluga wax ka beddeshaa waa inay dhaqanka wax ka beddeshaa hadday dhaqanka wax ka bedeli weydo aqoontii la ictiraafayey maaha aqoon qiimo samaynaysa maaha waa inay noqotaa aqoon adiga dhaqanka iyo bulshadaad la nooshay dhaqankeedba wax ka bedeli karaa haddaba waxaan leenahay aqoonyahanku aan doonayna ka muslim ahaan ka umma soomaaliya waa inuu noqdaa qof diinkiisa garanaya aqoonta aadanuhu uu maanta isku hogaamiye kalena wax ka garanaya bulshadiisana hagi kara markaasi oo waa maxay aqoonyahanku waa dadka sameeya alcaqli alcaami lilumma aragtida guud ee bulshadu ay rumaysan tahay waa inuu noqdaa aqoonyahanka qofka kawinaya samaynaya waa inuu noqdaa aqoonyahanku qofka ilaaliya ummadda identitygeeda ummad waliba waxay leedahay identity wax lagu garto waxay ku soocan tahay
وينو بادي سوعيدا إلى الكرية وحلينا قويها كانوا باهنا وينو نقضا قف هاجي كرب الشدة إلى الخير سمها كو هاجي كرا وينو نقضا هذا با كي يسبدل كدعة أمد إنه يسبدل كدعة waxay yiraahdaan waxa sababa koow in la helo cultural revolution waa in ummadda dhaqankeeda la bedelaa dhaqanka la bedelaa waa maxay waa in la hufaa oo dhaqankaasi wixiisa xun waa in la tuuraa wixiisa sanna waa in la sugaa wixii kale fiicanna waa in lagu daraa sida awgeed ummadaha isbedel kuma yimaado haddaan waxay rumaysan yihiin wax laga bedelin qaabkay u dhaqmayaanna wax laga bedelin ilaahay quraanka muxuu ku tilmaamaya inna allaha laa yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم dadku waxay ku sugan yihiin ma biqawm balayeen Allah la yughayir ma biqawm ma bi umma dad waxay ku sugan yihiin isma bedelo ilaahi ma bedelo hatta yughayiru ilaahi yabdalan maxay ma bil anfus garaadka iyo aqliga iyo dhaqanka iyo suluuga inay bedelaan mooyane waxba isma bedelaan sida awgeed إلهي مركو الرسول صادري الرسول وأقوياها كعدة هجامسة وهي absolute value أقونا بايه وسيدان توس أي ربي قادو ولا كل من أن وصيله تجارب بني آدم بصامرين أي ربي قاد توس وقت ما بيحن بارسيه الرسول شو حي السماياني أنبياء دوام حي ما بالأنفس بيبدلان دتكو سيدو فكريو iyo waxa uu rumaysan yahay iyo dhaqankiisa ay bedelaan kaas marka la bedelo cultural revolution ku dhaco ayaa materialka bini'aadamkana wax iska bedelaan marka nabi maxamed alayhi salatu wasalaam kitaab science masidin lama soo dhiibin teknolojiyada iyo baabka waxa loo soo dhiibay wax lagu bedelo bini'aadamka uquushiisa iyo afkaartiisa iyo aragtidiisa iyo dhaqankiisa iyo hidihiisa wax bedeli kara تامركي لبدلي waxay taasi tilmaamtay waxaan xaq ahayn inaan dadku rumaysan wax kasta inaanu iska rumaysanin aqoontooda wasaayisha ku adeegsanayaan imma alxisu aw alaqlu inay noqoto inay naqdiyaan waxa aan toosnayn waxa toosanna inay sugaan inaanay aqbalin khuraafa dhammaanteed jahligu inuu ceeb yahay inay rumaystaan إنسانكو إنه وحبرتا إنه في عنتا إن للرميسته إن علمه قدرينه يشو وحني ثقافة دي كلجر كي بني آدم كله بدليه ومعتقد كي بني آدم كله بدليه وحرميس ناقف كبني آدم كاي وقاب كودق ما يقول بدليه تاسا وحي دا الشيء قرن كذب إن الدنيا دا أقونتي تهلودن إنت أوروريان أي هفان ولبا oo waxaanu cuntameyn intay ka tuuraan ay ka dhigaan wax aadanaha wax tara bale Sartre George Sartre meel oran jiray ninka ugu caansan history of science ka warrama encyclopedia shanta buuga leh qorniyo dhan oo centuries bini aadamka soo maray buu wuxuu astaan uga dhigayaa أقول يهنا مسلمة بولي وسنشري كنتم كي سنة نمبوك على مدين كم إذا أقول يهنا دي مسلمين تصامرين لكن أقول يهنا ده نجار ما يسمى اسمين وحي يسمى اسمين cultural revolution مركو داعي مركي أمده سيدا يفكر يسي يا وحي الروميسنيد وحلقة بدلي أيا وحى صاب حي material كي بني آدم كوبا هنا ندت رادعيي وأقوم وحي جريك وهيي وحي إنديا يالي وحي تشاينا يالي وحي عالم كيالو ده انت يصور نقليين أيي هفين وقيبة بدن المسلمين توي كتجه سنة مضى يسد الله قرقرية موسيقات كودية وحي لم وحاصل دم ويتورين
khuraafaadka wixii ku salaysnay oo dhan way tuureen wixii wax anfacayay ayay tatwiiriyeen way istaycaabeen marka hore way kulmiyeen kadibna way tatwiiriyeen way horumariyeen sidaa awgeed xataa yurub markaynu dib ugu noqonno yurub inay technology hesho waxaa ka horreeya inay thaqaafadeedii beddeshay cultural revolution inuu ka dhacay waxaa maqashaan yurub iyadoo laga warramayo casuurtii caqlaaniyiinta ama casru tanwiir enlightenment waxa la yidhahdaa maqashaan enlightenment period ama renaissance waqtiyaduu bilaabmay in technology la helo waxaa ka horreeyey in la naqdiyo culture-kii ay haysteen naqdi fiican bay ku sameeyeen laakiin mushkiladdu samo iyo khayrba wuu keenay ama khayr iyo sharba wuu keenay naqdigoodii waayo wuxuu waayey marjiciyadii rasmiga ahayd markay kitaabkoodii naqdiyeen diintoodiiyo munxarif ahaydna ay soo bandhigeen inay inxiraafu ku jiro inay qaldantay inuu bini aadamku wax ku daray inuu kitaabkani ahayn sidii uu alle uga yimi inaanu ahayn taasi waxay sababtay markaa inay diintoodii oo dhan tuuraan ha tuurane laakiin caqliga saliimka wuxuu ahaa inaanay moodin diimahoo dham inuu kitaabkoodan qaldan yahay yurub may dhaafin kaljarkoodii iyo kaljaradii kale may daraasaynin maalan islaam may daraasaynin authenticity-ga kitaabka rabbulcaalamiin ka yimi qur-aanka may daraasaynin koodii bay ku toobaan koodii way tuureen xisi naqdiyana way la yimaadeen oo ah waxay haysteen inay naqdiyaan taasaa waxaa ka dhashay inay raacaan asaaliibtii muslimiintu tajriibiga ay raacayeen in kiniisadda laga xoroobo afkaartii kiniisadda in laga xoroobo aragtiyo badan oo khuraafo ah in laga xoroobo aqoontii dunida taallay in la soo tarjumo in la tatwiiriyo in la naqdiyo taasuu ku bilaabmay idan umamku inay isbeddelaan waxa beddela umamku waa aqoon-yahanka waxa umamka beddela waa aqoon-yahanka laakiin waa markuu aqoon-yahanku kaydkiisa aqooneedna saxan yahay caqli kritigana uu wato wax naqdin kara u diyaar yahayna inuu wax tawjiihiyo oo wax isbeddel uu sameeyo walidaalika ayuha alaxiba waxaa tiin da'yar jaamacada ku jirta ama ka baxday dad raba aqoon kayd aqoomeed oo caalamka yaalla kaydka aqoontu cid gaari ma leh horta cid gaari ma leh markaan leeyahay maxaan uga jeedaa waxa weeyaan aqoontu waa wuxuu aadanuhu kala dhaxlay waa irthigii bini aadamka waa dhaxaltooyadii aadamaha in taariikhoo beenoo reer yurub ku dhex daray baa jirta oo ah European centric laga dhigay wax walba inuu yurub ka soo baxay waa khuraafa waxba kama jiraan yes wax badan oo yurub ku dartaa jirta laakiin wax walba inuu iyaga ka soo ifbaxay waa beenaha ugu waaweyn ee dunida la sheegay ka mid iminkana iyaga naqdinayo tilmaama beenihii ugu waaweynaa ee dunida la sheegay inay ka mid tahay wax walba hebel baa soo saaray dan la isu sheegaa inta badani waa been waxba kama jiraan laakiin waxaan leenahay aqoontu waa dhaxalkii aadanaha reer nebi aadam wuxuu dhalay tajaaribtoodii ay wadeen oo la ururiyey weeyaan laakiin yurub markay dunida gumaysatay ururintii ugu tirada badnayd bay samaysay ama aan si kalena u tilmaamay xatooyadii ugu badnaydna way sameeyeen dhal ayay waxay dhaxal lahaayeen qoraal xadeen inay iibsadaan inay boobaan inay qaadaan inay qasab ku qaateen ka dhigeen ilaa haddana iyaga kaydka haysta ugu weyn dunida ee nooca ku saabsan si kastaba ha ahaato waxaan leenahay aqoontu waa dhaxalkii aadamaha reer nebi aadam cid walba in bay ku darta griigu in buu leeyay chinu in buu leeyay hindidu in bay leeday xadaara alislaamiya in aad weyn bay leeday
xadaara algarbiya aljadiida in bay leedahay welina aadanuhu sidii buu usii kordhinaya idan waa dhaxal aadamaha ka dhaxeeya waa dhaxal aadam wixii uu dhaloo dhan ka dhaxeeya waxaynu u baahannahay markaa dhaxalka aadamaha ka dhaxeeya inaynan ka qadin waa kow inaynu kayd ka abuuri karno laba waxaynu u baahannahay inaynu yeelanno caqli wax xufi kara oo dhaxalka aadanuhu ka tegay saafi ma wada aha fiihi dakhan saafi ma wada aha wuxuu u baahan yahay caqligii shiili lahaa siiba qaybta art siiba qaybtaasi yacni qaybta scientifiga ahi waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid a qayb badan oo ka mida inay xaqaa'iqda u dhowday walidalik lagama yaabo inaad aragtaan wax badan oo ama natural scienceska ka mid ah ama mathematicska ka mid ah oo laga warramayo ninkii qoray wixii uu rumaysnaa lagama warramo waayo ma hadheeyo inta badan waxa uu qofku rumaysan yahay xaqaa'iqda cilmiga ee noocaasiya maalan lagama yaabo maalan algorithm waa alkhawaarzimi nin la odhan jiray maxamed alkhawaarzimi baa soo saaray alkhawaarzimi magaciisii baa algoritmkani waa magaciisa laftiisii oo si xun loo isbeeliyey inuu muslim yahay iyo inuu masiixiye ka arki maysid xisaabta dhexdeeda aljabro markaad dhiganayso waa nin muslima soo saaray laakiin inuu masiixi iyo inuu muslim iyo aljabrada ka dhex arki maysid mathematical proof hadday hesho waa caynka inuu yahuudi soo saaray iyo inuu hindi soo saaray ka dhex arki kari maysid laakiin aqoomaha bini aadamku uu isku gumaysto ama isku hago waa aqoonta kale ee ku saabsan culture-ka oo dhan oo haddaynu culture-ka u qaadano siday faransiiska iyo maxay ingiriiska u sharxaan oo ereygan culture culture markuu yahay afka jarmalka iyo thaqaafadii jarmalka alxadaara kullahaa baa la yidhaahdaa qeybteeda maadiga ah iyo qeybteeda thaqaafiga aba marka la isku daro culture bay iyagu isku yidhaahdaan laakiin markaad timaado faransiiska civilizationka civilization miyaa la yidhaha faransiiska ma aqaani erey noocaasiya weeyaan marka la yimaado ah faransiiska oo ingiriiskuna kasii dhambalmay civilizationka laba qaybood bay ka dhigaan oo qeyb madaniya iyo qeyb yani qeyb thaqaafiya iyo qeyb materiala alxadaara almaadiya iyo thaqaafa waxay leenahay markaas qeybta thaqaafiga ah ee ah social scienceska ama siyaasad ha noqdo ama akhlaaq ha noqdo ama cilmi bulsheed waxaad doontaba noocu doonayaba ha ka noqdo ama fan ha noqdo ama wax allaaliya waxaa bini aadamka ku saabsan ee aan natural science ka ahayn waa sawiro muctaqadaadka bini aadamku uu kala rumaysan yahay tilmaamaya hadduu dhaqaale yahay hadduu siyaasad yahay hadduu cilmi bulsheed yahay dhammaanteed walidaalika markaad baranayso waxaad baranaysaa theories aragtiyo kala nooca aragti raasamaaliya aragti shuuciya aragti diiniya aragti philosophically waxaa ka soo jeeda waa madaaris school of thoughts kala nooca weeyaan waayo muctaqadaadku ku bini aadan bay ku salaysan tahay kaa waxaynu u baahanay inaynu yeelano xis naqdiya xis garan kara maxaa sawaaba maxaanse sawaab ahayn maxaa khata ah maxaase fiican oo la qaadan karaa maxaa tajriba saxiixa ah maxaan tajriba saxiixa ahayn waxaynu u baahanay markaas inaynu diinteenna si fiican u garan karno waxaan leenahay markaan soo koobo weedhatan aqoon-yahanka aan rabno waa inuu noqdo qof masdarkaa cilmiga saxiixa ah
إما كتاب الله المقروءة أما كتاب الله المنظورة قف كيد كهيسته وين نقضى قفك وحن نقدين كريتيك سمين كرا وين نقضى قف ومدى توجيهين كرا أو cultural revolution سمين كرا لكن لبت وحي تاجنتها هي نجا مركو أقويها كانوا قداشة كمرو odayaasheenna iyo jiilkaynu rabnay inaynu bedello waxay dhibtu taagan tahay markay aqoontu xagga dambe ka marto taxadiyaadka aynu leenahay sideedaba qofka bini aadamka challenges baa ka hor yimaada caqabado noloshu waa caqabado aqoonyahanku hadduu aqoonta caloosha ka horumariyo aqoonyahan maaha maxaan cunaa haddaad u noolaato hadday noqoto aqoontaydu maxay gooysaa suuqa marketka maxaan ka gooyaa haddaanay aqoontu xishood iyo cilmi iyo wax qiimaynaynin waxay qiimaynaysaa uu noqdo see lacag lagu helaa walow badda ku dhacnay qiimo male markaa maaha aqoontii cultural revolutionka samaynaysa maaha hadday aqoontu noqoto aqoonyahanku hadduu noqdo qof la iibsan karo sultadu iibsan karto dowladuhu laaluushi karaan oo iibsan karaan aqoonyahan maaha hadduu aqoonyahanku noqdo qof qabiilku iibsan karo tobanooda intay kuu yimaadaan idhahdaan reerku saasuu damcay waa lagu iibsaday hadduu aqoonyahanku noqon karo qof la bajin karo oo ama sultada jirta bajin karto baqagelin karto ama culture-ka bulshadu ay leedahay ee xun culture-ka san waa inuu ku baqageliyo waa inaad ixtiraamtaa inuu ku baqageliyo maaha laakiin culture-ka liita uu ku baqagelin karo aqoonyahan maaha ama aqoonyahankan rabnee wax bedelayay maaha sida ogeed dhibtayna haysata caalamka saddexaad waxaa ka mid ah aqoonyahan badan oo ay lahayd wuxuu noqday mid hungurigu wado ee aan aqoontu wadin aqoonyahan badani wuxuu noqday mid aan ethics lahayn mid aan akhlaaqiyaad lahayn ee maxay xagga shilinku jira uun jira aqoonyahan badani wuxuu noqday inagu dhaqankeenna ka Soomaali ahaan ka umma Soomaaliya dhib daakhiliya baynu leenahay dhib gudeed iyo dhib khaariji ah bini aadam walibana labadaa dhibood buu leeyahay dhib daakhiliya aynu leenahay oo ah inaynu qabiil u qaybsannahay siyaasadeennu waa qabiil mararka qaarkood waxaan is idhahdaa axsaabta siyaasiga aynu leenahay maalan talow haddii ragga u taliya la kala bedelo reeruhuna soo ma kala guureenu haddii nimanka madaxda ka inta mid la qaado xisbiga kale la geeyo reerkuna waa uun xagga kale ka soo wareegi laha waayo haddaynan ideology haddaynan waxaynu wax ku qiimaynayna rumaysanayna qof rumaysannahay ma aha inuu qofkani xun yahay anugu kama hadlayo laakiin waxa weeyaan haddaynu shaksana qof daba soconno aynan mabaadi' daba socon iyo aragti qofka in la raaca wax xun maaha laakiin qofku waa inayn waxaan ku raacsanaya mabaadi' iyo aragti tahay laakiin hadday noqoto inaanu isku reernahay inaan ku daba socdo dee aqoon-yahana sheegana magac kala sheega markaa hadhow ha odhanin literate man baan ahay ama learned people-kan ka mid ahay ama scholar baan ahay ama academic baan ahay ama intellectual baan ahay erayada tirada badan ee af ingiriisiga meesha laydinku sheego ha sheegan wax kala sheego nin reer hebel aan ahay iska dheh odayadu saasay rumaysnaayeen waxaan inooma sheegtaan waa suldaan waa caaqil waa nin reer hebela reer hebel waxay ku go-aan buu ku go-aa khalaas isaga kamaba qasnayn marka horeba duubkiisuu sitay laakiin haddaad adigu aqoon sheegatay aqoontu waa inay wax soo kordhisaa waa ina cultural revolution samaysaa waa in bulshada aan bedeli karnaa taxadiyaad khaarijiya jira oo ah tajhiil ulumma umamka si aad u gubayso si loo gumaysto waa in aqoon darro lagu hayaa
si loo gumaysto waa in la tajwiiciyaa hadday madaxa yara taagaan waa in la gaajaysiiyaa cunaqabatayn dhaqaalaha waddankan lagu soo rogay waxaan baa lagu soo rogay si loo gumaysto waa in la bajiyaa waa in la baqageliyaa haddaa saa yeeli weydaan bariiskaa laydinka jaraya waxbaa laydinka jaraya hubka laydinka iibin maayo waa laydin cunaqabataynayaa duwal ilmaariqa baad ku biiraysaa dowladaha shaydaanka ah rag baa qaanuunka iyo xoogga iyo waxa uu dhistay oo ku talagalay inay hayaan say iyagu rabaan inay wax u sawiraan laakiin anigu waxaan rabaa inaan xor ahaado meel laga xoroobana caqligaa ugu fiican marka koowaad caloosha inaad ka xorowda inaad caqliga ka xorowdaaba ka roon markaad caqliga ka xorowdaabaad calooshana ka xoroobi kartaa waxaan u baahannahay markaa taxadiyaadka khaarijiga ama challengeska dabadda ka imanaya inaan ka xorowno challengeska dabadda ka imanaya waagii hore duwal baa wax gumaysan jiray oo xoog ku qabsan jiray imika yadubuun waa sida quraanjada ay hadda u socdaan quraanjadu maxay way tamar yartay laakiin xagee ka soo baxdaa meel kastoo jeexan unbay fudh ka soo odhanaysa haddaan iska gufaynin bulshada tasaduceeda bulshadu hadday burburto quraanjo oo dhan baa ka soo dhex baxda bulshada Soomaaliyeed way burburtay culturally bay burburtay dowladnimay burburtay dhaqan baa burburay diin baa xataa burburay dadnimadeedii baa burburtay dhaqaalaheedii baa burburay wax kastoo ay soo qaadatay way burburtay dadkii dabadda ka ahaana way ka soo dhex tooseen maalin walba seminar yar iyo capacity building baa laynoo wada soo capacity-ga numa dhismo ilaa ka inoogu sarreeya baarlamaan baad maqlaysaa laleeyahay capacity building baa loo samaynaya kuwa academiga capacity building loo samaynaya waxna la inooma sheego waxaynu noqonnay inta laynaga dhex toosay ee dawla taxta dilli baa talisa dowladda hooska waxay yidhaahdaan waxaa laga yaabaa wasaaradaheenoo dhami NGO-ya hoosta kaga naban iyagu masruufa bulshadeenoo dhan maca tujaarteenna maca waxeenoo dhan balaayo kale hoosta kaga mudan oo dhaqaale ahaan ku hogaamiya waxaynu noqonnay dad keenada loo hayo keenada soo ma taqaaniin awrka dee xadhiggan marka lagu xidho keenada la xidho ee loo faruur xidho waa la wadaa un hadduu madaxa yaro gijiyana faruur xidh baa loogu daraa maca faruur xidhka aynugu xidhan idan ayuha alaxiba waxaa tiin da-yartii akademiga ahayd ee waxbaranaysa ee jaamacaadka joogtay waxaan idinka rabaa waxa weeyaan inaad kayd aqooneed samaysaan aqoon kayda inaad samaysaan waxaan kaloo idinka rabaa inaad xis naqdiya yeelaan xis naqdiya macnaheedu waa maxay waa inaad xorowdo inaan maanka laydinka degin oo laydinka gumaysan inaad xor noqotaan intaa markaa yeelataan waxaa awood u yeelanaysaan inaynu bulshadeenna bedello bulshada dadka ugu badan ee bedeli karaana waa aqoon-yahan hadduu aqoon-yahanku yahay mid qandiilka toojka midu sida ummadda hadduu noqdo aqoon-yahanku waa qof dadka u ifinaya jidkay mari lahaayeen aqoon-yahanku waa mid dadka u ilaalinaya kaljarkooda wixii san iyo dhaqan iyo diine ay leeyihiin ilaalinaya oo ka ilaalinaya in cid kale soo gasho aqoon-yahanku waa mid isku dayaya ummaddu waxa xune ay haysato mid duminaya hadday qabiiltay hadday mukhadaraad tahay hadday dhaqan xumo kala tahay hadday ammaano darro tahay wax allaaliya waxa bulshada inay horumarto kor u ruqaansato u diidaya waa qofkii ka hufi lahaa macnaheedu waxa weeyaan waa inu isagu markaa noqdaa qof nadiifa ilaahay muxuu yidhi dadka ma samaha faraysaa
idinkuna maxay samayn maysaan maxaa lagu gabagabeeyey afalaa tacqiluun maanka miyadan isticmaalayn baa ilaahay leeyahy aqoontu waa inay wax beddel samaysaa aqoontu waa inaanay noqonin in meel durugsan laynaga hago tusaalaan ku siinaya dadka maanta dunida hagaa waxay isku dayayaan waxa kale ka kaalay xataa dhadhankeenna inay hagaan tviyada soomaad arag kijo laga soo bandhigo kijo New York ku taallo saa wax loo kariyo inoo sheegaysa maadana wuxuu haystaan karsana qoom ma jira yani waxaa la rabaa dhadhankeenna xataa in laga dhigo dhadhan iyo New York laga xukumo maradaynu qaadanaynay xad baad maraysaa bal masaajidka gal nin weynoo tukanayo dabadu muuqataad arkaysaa oo salaada asaxaysaa يعني هو السروال كسيل إنه قصة طلع إنه أقبل لي إنه قاضنا حنو بهنا إنه حرونه حرن مضو ما هب قعط الدولة بنان وضح فرد دولة ده حربان والدولة هبلايا ما لا ما هتا حرن مضو هنا العقل جابه حرية هي نولش واحد أدور الربطة إلى تصمين كريسو واحد عندني كروتش لين يتكتجي كرتون ولو عندك لا يبوفين يسوس آخرين يسوس waxaan ku soo koobaya marka aqoon-yahanimo waan isku dayay inaan ku ag warwareego bal waxa ay sheegayso wax ka mid ah inaan tilmaamo waa kaa inuu leenahay inuu tooj sido dadka uu ifinaya toojka wuxuun baana sidi kara qof garaadkiisa caqliyeedna uu xor yahay kayd aqoomeedna leh waxa uu sheegayaan ay ka runto noloshiisa ka muuqato inta haddaa heshaan adduunkanna magacba kaga tegaysaan iyo maamuus aakhirana waa liibaanaysaan waana inta ay ambiyadu qaban jirtay iyo dadkii hormoodka u noqday umamkooda dhammaantood dadkii umamkooda hormoodka u noqday aqoon-yahanka u ahaa waa waxay sameeyeen innaga waxaa ina baylihiyey dadkaynu aqoon-yahankaynu daba soconay aqoon-yahankeeni meel cidlaa buu ina dhigay ka Soomaali ahaan waxa ina qaybiyey ina burburiyey xadka ina gaadhsiiyey waa aqoon-yahankeennii waayo aqoontu sidaan noqonin tii iftiinka ahayd ee bulshada ifinaysay aqoon ku xoogsiya un bay noqotay ka ugu fiican isagu ku xoogsada oo wax ku kororsada laakiin dadka iyo bulshada iyo dadka aan midnaba waxtar u lahayn aqoon xorriyad leh oo horumar keeni karta oo rabbigeedna rumaysan aakhiradeedana ka fekeraysa adduunkeedna dhisaysa ayaynu u baahanay sala allahu calaa nabiyi muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin